السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin dhaweyta anigoo website-da eegaya waxaan akhriyay wax aad u cajiiba. Waxa laga sheekeynayay nin Indonesia dalka Indonesia u dhashay. Ninkaas gaari uu lahaa ayuu damcay inuu iibiyo. Website ayuu ku xaysiiyay oo gaarigiisaas u soo bandhigay iib. ninkii ka iibsanayay gaariga ayay wada hadleen, hadhowtana dhowr jeer ayay wada kulmeen. maalin maalmaha ka mid ah ay kulmeenoo lacagtii wixii la kala qaadanayo gaariga la jeegaraynayay ayaa ninkii dalka Indonesia u dhashay ayaa ninkii kala weydiiyay, wuxuu ku idhi dalkeebaad ka timi. ninkiiba wuxuu ku idhi waxaan ka imi amaan u dhashay dalka Falastiin. ninkii Indonesia baa markiiba uu naxay, wajigiisiiba isbedelay, qamcihiisiibuu kor u qaaday, markaasuu ninkii u duceeyey Falastiiniga uu yidhi ilaahay haydin hiiliyo, cadowgiina ku guulaysta, ilaahay haydinka badbaadiyo dhibaatadan. saacadan buu u ducaynayay. waxa cajiibka maaha ducadan iyo naxariistiisan qalbigiisa gashay. waxa cajiibka waxa weeyaan hadhowto eriba afkiisa ka soo baxay aad u cajiib. aniguna markaan akhriyay niyadeedii maskaxdayda ka bixi waayay. wuxuu ku idhi ma rumaysanaysaa bil kasta mushaharkayga ayaa lacag cayiman laga gooyaa. lacagtaas waxay u tagtaa qolo kombiyuutarada ka shaqeeya ama ICT-ga bartay oo kombiyuutarada bartay oo isku daya bil kasta inay jabsadaan meelahan internetka ama website-dadan caskariga ee ay leedahay dowladda Yuhuuddu. wax aad u cajiiba inuu lacag u bixiyo wax saas oo kale ah. qoladaas waxay isku dayeen inay jabsadaan meelaha website-dada si sirta ay leeyihiin Yuhuuddu ay faafiyaan ama meelahoodaas caskariga internetka ay ka xumeeyaan. waxaan ka fikiray niyadeeda ku soo dhacday markiiba siduu uga fakaray waxaas, siduu u helay albaab uu ka galayo ama uu ka caawinayo ama uu ugu hiilinayo walaalihiisa maanta Falastiin joogtay gantaalaha habeen maalin lala dhacayo. ninkaas af carabi garan maayo, diintii si fiican uma fahamsana, laakiin qalbigiisa u gubanayo u olaayo walaalihiisa dhimanaya, xaq darro ku dhimanaya, uu damcay inuu u hiiliyo. wax qabad la'aantiisii iyo caajiskiisii wuxuu ka dhigay ficil buu ka dhigay oo dagaalkii buu galay. waliba wuxuu ugu daciifsanaa ayuu qabtay. bil kasta arsaaqadiisa iyo arsaaqada ubadkiisa iyo dhididkiisa ayuu ka jaraya sidee u noqoto wax uu ku caawin karo ama ugu hiilin karo walaalihiisa xaq darro ku dhimanaya. dagaalkan maanta Falastiin ka jira maaha dagaal keligeed lagu galayo hub ama gantaala ama qori inaad qaadatid. waxaa jira waxyaabo fara badan aad qaban kartid sid walaalaha ula dagaalamtid aad wax ula qabatid. laga yaabaa ninkan maanta midhaha waxan uu qabanayo inaan adduunka ku arkin. laga yaabaa dadkan isku day maalin kasta inay jabsadaan meelahan website-ku Yuhuuddu ay leedahay inay ku guulaysan waayaan oo ay ku fashilmaan. laakiin waxaan uu qabanayaa miisaanka aakhira aad buu culus tahay. laga yaabo inuu natiijadii iyo saamayntii adduunka aanu ku arkin, laakiin waxa ku filan inaanu noqon dadkii fadhiistay ee daawanayay walaalahooda dhiigooda qubanayo. ninkaas social media caan kuma aha, Facebook caan kuma aha, qof la garanaya ma aha, laakiin wuxuu ka fakaray, uu arkay kaalin bannaan, uu go'aansaday inuu kaalintaa bannaan inuu daboolo. barakada lacagtaada iyo arsaaqadaadu maaha inay fara badan tahay. waxa barakaynaya lacagtaada arsaaqadaada waxa weeyaan waxaad ku qabanaysid iyo sadaqadaad bixinaysid. waa inaan ninkaa ku dayno aan u tartamno san u caawin lahayn walaalaheen Gaza maanta jooge ee sidaas xaqdarada u dhimanaya habeen maalin gantaala la dhacayo. haddana caruur nahay, haddaan dad waaweyn nahay, haddaan rag ama dumar nahay, qof kasta khibradiisa iyo lacagtiisa iyo cilmigiisa iyo awoodiisa waa inuu wax qabto. wax fara badan ayaa jirta aan qaban karno. kaalimo fara badan baa maanta bannaan oo aad dabooli kartaa baahida ka jirta. qofkii aana dagaalami karin, dagaalkii aana geli karin ee qori aana qaadan karin maanta waa inuu dacwadda ka shaqeeyo, waa inuu ka hadlo dhibaatada Gaza ka jirta, waa inuu lacag bixiyo, waa inuu duceeyo, waa inuu fikir la imaado sida ninkan, waa inuu hal abuur la imaado. anigu waxaan garanayaa dad sidii dagaalku u bilaabmaday ee gaajadan maanta ka socota Gaza ay u bilaabmatay, dad wiigiiba 4 cisho ka sooma say haraadkii gaajada reer Gaza haysta uu la dareemo. waxaan garanayaa dad qiyaamul leyl kaca oo u tukada oo ilaahay barya inuu ilaahay dhibaatadan Gaza ka qaado. waxaan garanayaa dad sadaqado bixiya maalin kasta si ilaahay dhibaatada Gaza uga qaado. ma ogtiin maanta
caruurta Gaza joogtay dumarkooda gantaalaha la dhacaya iyagoo khaymadoodii hurda ayay gubanayaan caruurtii gaajo u dhimanaysa marka telefishinada laga hadlo hooyooyinku waxay leeyihiin markaan caano u weynay daasada caanaha aan weynay ama anaku gaajo daraadeed naaskaygu aanu caano samaynayn biyo sonkor baan caruurtii u qooshan aan siiyaa qaarkood ka hadlay maalinta saxafiyiin la wareysanayay waxa ku leeyeen biyo iyo milix ayaan maalin kasta cabnaa saanay mindhaqaraha ayagu aan isugu dhigin ama calooshu aan noo qurmin gaajo daraadeed dadka maanta Gaza jooga waxa weeyaan madaxda ummadda waa taaj madaxeena saaran waa dadka ugu daahirsan ugu sharafta badan ugu nadiifsan ummadda maanta wax kasto maanta qabano xaqoodi ma siinayno waxaan u qaban lahayna waa deen maanta in saaran ilaahay aakhirina weydiinayo waxa xasuusataan markasta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun ay ilaahay yiri sadaqa allahu alazim maanta waxa guuleystay ki غزة بربر استاغي كي وحو قبتي كي دعاي كي صدقات بحيي كي إلهي أبر إيمان تقوليستي وحا حصوصة النبي عليه الصلاة والسلام سدويري مسلمك ولالك مسلمكنا وحويا وين إسبربر استاغان وإستاغيران هدو مانتا النبي عليه الصلاة والسلام هدو مانتا وحويا تشرقرا هدي فر مانتا أي حانوصة أما ميلكبك هذا وينو تشرقرا ووضا دمقضا حانونك حبنتاس دمقانيسا أن حسوسنا ولا لهن غزة شوقة دبعتدو ده هيستا دجال كأن قلنا أن قيب كنا قلنا ما أنت دجال كان شرا وحكستن قبنا كنا ما أنت أنسكت دينه وحأغير إن كهضنا أن ومد يدد كبرارو شنا الأشياء قلنا دبعت ده غزة كشرتا ومهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.